madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku casuumay xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland. Haddaba munaasabadaasi qaabkii iyo jawigii ay u qabsoontay ayaa ahaa sidan. ilaahay kadibna waxaynu ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu maanta halkan hadhiima sharafeed ugu sameeyay golaha wakiilada oo isu dhan waa habdhaqan soo jireen ah in golayaasha la doortay madaxweynuhu uu ku casuumo halkan waynu uga mahadnaqaynaa madaxweynaha waxaana dhammaan hay'adaha dawladda ee halkan fadhiya isku xidha oo oday u ah madaxweynaha oo ah odaygii guud ee qaranka sida uu xil uga saaran yahay xukuumadda buu xil uga saaran yahay golaha baarlamaanka oo isku dhan sidaasi la eg buu golaha garsoorkana xil uga saaran yahay waana odaygii guud ee isku xidhayay intaasoo dhan mid walbana hawsha uu hayo cidda ku kor joogtaynaysa ee ku ilaalinaysa waa isaga madaxweynuhu isagaa madaxweynihii qaranka golahana isagaa xukuma ee golo cabdisaaq khaliif xukumo oo mucaarad oo halka jooga ma aha waa golo qaran oo madaxweynuhu xukumo baan ugu faraxsanahay waana runtii arrin aan runtii madaxweynaha uga mahadnaqayno isu soo dumidda ama isugu yeedhidda golayaasha qaranka waa arrin qiimo badan hay-ad waloo dastuuriya waajib ku ah in shaqadeedana ay gudato shaqada hay-adda kale ee dastuuriga ay leedahay in ay ku ixtiraamto isla markaana xadkeeda ay ku ekaato waa waxa keliya ee dowladnimada ay ku imanayso kow in shaqo fiican la qabto oo haddii xilliyadii kambeynka ama kambeynka fan lacagtiisii cidi gaari kaa bixisay ama qaangaara ama lagula ololeeyey maanta inaad dadkaagii codka ku siiyey u shaqayso waa lagama maarmaan laakiin dadkii ku taageeray hostage ha u haani maanta adigaa madaxa adigaa wuxuu sheegaya marna cod baad doonaysay marna waxbaad hogaaminaysaa madaxweynaha waan uga mahadnaqaynaa runtii kulanka weyn ee qaran uu maanta isugu yeedhay si wanaagsan u wada shaqayno is ixtiraamno weeyaan madaxweynahana waan uga mahadnaqaynaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xildhibaanada iyo shir guddoonada labada gole ee aanu ku marti qaadnay qadadan ee naga ajiibay ee ka soo qayb galay aad iyo aad baanu ugu mahadnaqanaa waananu soo dhaweynaynaa maanta maalin ka horeysa inaynu qabanno ahayd qadadan golaha wakiilada aynu ku marti qaadayno iyo martida kaleba laakiin si la sheegay howlaha waa iska badan yihiin hadday daahdayna maanta waa joognaa golayaasha qaranka ugu sarreeya xeerdejinta oo laba aqala oo labada shir guddooma joogaan maxkamaddii oo jooga guddoomiyihii maxkamadda sare iyo fulintii oo badankoodii jooga haddii ilaahay idmo inaynu noqonno xukuumad iyo dowlad danta qaranka ka shaqeeya dooda markay doodana halka codka u bato isku raaca qaabka ay u shaqeynayaana uu yahay mid ixtiraam ku dhisan hadduu qof la hadlaayo ooy doodayaan adoo doodaya ha ku xadgudbin qofka kale hadday qayb ama aqal kale la hadlaayana adoo doodaada iyo halka ay danta ku jirto tilmaamaya ay kuula muuqato ha ku xadgudbin aqalka kale ee doodaada si miyir qabta oo sharci ah oo ixtiraam leh u soo jeedi haddii taasi broseskaasi naga qaldamo oo dadku aanay si ixtiraam leh iyo aqaladooda shaqaynaya aanay u shaqaynin dee shaydaan baa ka dhex duulaya ilaa dad si xun wada hadlay heshiin maayeen wakiilada cusub ixtiraam baanu u haynaa ku xadgudbi mayno waa la shaqaynaynaa isku mid baynu nahay siyaasadaasaynu ku shaqaynaa haddii la idhaahdo